16 bishii Sebtembar dowladda Soomaaliya ayaa xariga ka jirtay nidaamka kaarka aqoonsiga. Shir socday 2 maalmood ayaa ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Shirkaas waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay dowladda hormuudna ka yahay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, aqoon-yahano, hay'ado caalami ah iyo marti sharaf kale. Arrinta xiisaha leh ayaa ah in madaxweynaha jamhuuriyadda loogu geeyay qalabka diiwaangelinta magaalada Dhuusamare, isagoo shacabka Soomaaliyeed ku booriyay inay qaataan kaarka aqoonsiga. aqoonsi la'aantu dhib badan ayay nagu haysay. muwaadin kastoo Soomaaliyeed wuxuu yeelanayaa warqad aqoonsi ah, lambar aqoonsi ah oo loo yaqaano, oo maalinta uu kaarka qaata aqoonsiga ilaa maalinta uu ka dhimanayo macaamilkiisa adduunyada oo dhan ay ku dhisnaa doonto. Furitaankii shirka maareeyaha hay'adda aqoonsiga Cabdiweli Timcad ayaa la wadaagay ka soo qaybgalayaasha yoolasha ay hiigsanayso hay'addu iyo sida ay uga go'an tahay dardargelinta shaqadan muhiimka ah. arrinta aqoonsigu waa issue caalami ah. waxaa lagu xusay Sustainable Development Goalska 16.9 waxaa ku qoran in qof kasta oo adduunkan jooga la diiwaan geliyo aqoonsina uu helo marka la gaaro 2030. waxaan rajaynaynaa ka hor inaan yoolkaas gaarno. waxaan noqon doonaa dowladaha ugu horreeya Afrikaana oo yoolkaa gaara. targetka iyaguna waa saas insha Allah. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka ayaa yidhi: awal dadkeennu haddii ay sheegan jireen qabiilkooda ama jufadooda, maanta waxaa la joogaa waqtigii uu qofku dhihi lahaa waxaan ahay Soomaali. haddii aan jawaabo gaagaaban ama juz'i ah oo kooban aan haynay, kumaa tahay, yaa tahay, qolomaa tahay, reerkee tahay, oo qofku deedna uu sheegan jiray qabiilkiisa iyo jifadiisa, maanta waxaynu taagannahay meeshii aynu wax intaa ka weyn oo dhammaanteen aynu ka soo wada jeedno aan sheegan lahayn, oo ah anigu waxaan ahay Soomaali. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi oo jooga furinta Xaradheer oo si muuqaal ah kaga qayb galay shirka ayaa tilmaamay helidda kaarka aqoonsiga inay sahli doonto in dalkeennu uu ku tallaabsado horumar dhaqaale iyo mid bulsho labadaba. Afurka barnaamijka aqoonsiga qaran wuxuu tusaale cad u yahay in meel fog aan uga nimid nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya. waxa kale oo aan la dhayalsan karin raadka uu barnaamijka aqoonsiga qaran ku yeelanayo baraaraha qaranka. muhiimadda barnaamijka aqoonsiga qaran, barnaamijkani wuxuu abuurayaa kalsooni ka dhex dhacda bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdeeda iyo dadka Soomaaliyeed iyo dunida. wuxuu kaloo xoojinayaa dadaalada xasilinta. aqoonsiga qaran waa hannaan wax badan ka taraya. waxa uu wataa dareen lahaanshiyo dal iyo in la garto muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxa kale uu xoojinayaa xiriirka dowladda iyo shacabkeeda. taasi waxa ay wax badan ka tari doontaa dadaalada aan wax uga qabanayno goobaha ay colaadu ka jiraan. faa'iidooyinka kale oo ku jira waxay tahay adeeg bixin. kaarka aqoonsigu waa plastic, ha yeeshee waxaa lagu helayaa dhammaan adeegyada asaasiga ah sida caafimaadka, waxbarashada, doorashooyinka iyo fursado dhaqaale. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay hore u qaaday tallaabo weyn mar haddii dowladdu muwaadiniinteeda diiwaan gelinayso, waxaana fududaan doonta isgaarsiinta adeegyada, abuurista fursadaha dhaqaale iyo muwaadiniintu inay helaan xuquuqdooda asaasiga. The foundation for it, as we've heard, is about trust. Citizens must trust their government that their data will be used with diligence and not be used for any other purposes than that intended. But if this works, there'll be feedback loops as government hold their citizens to account, provide feedback, and we heard the innovation around grievances, which enables government then to do better. So you get a nice virtual cycle. Secondly, on the financial sector side, yes, very few people in Somalia still included, particularly those in the rural areas. This will have an amazing potential for financial inclusion in a very simple way to enable people to have this online. aqoon-yahano iyo khubaro ayaa muddadii shirku soconayay ka falanqeeyey sida nidaamkani uu noqon lahaa mid miro dhala. caqabado fara badan oo la xiriira inuu national ID-gu yahay caqabada ugu weyn ee maaragtay waddankeena bangiyada haysata hadday noqoto inay la macaamilaan
maxaa la dhahaa hay-adaha global financial institutionska hay-adaha guud ee maaliyadda adduunka socodka iyo diritaanka iyo helitaanka lacagaha. dowladdu waxay u baahan tahay dadka ay dowladdu u tahay inay u tirsan yihiin inay taqaano inay ugu xiran yihiin maaragtay aqoonsi iyo meelay u raacdo oo dembiyadii iyo meel walba iyo laga fiirin karo. marka annaga macad ahaan waxaan u arkaynay daraasadaas inay ka mudan tahay waxyaalaha kale oo iyadu maadaama ay saameyn badan meel ku leedahay saasaan u goosanay. muhiimada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofka in la caddeeyo inuu kow xuquuqdiisa helo muwaadinku. dastuurka waa garanaysan muwaadinku xuquuq uu leeyahay waajibaadna waa leeyahay. xuquuqdiisa inuu qofku heli karo oo uu hebel yahay wey. arrinta labaad iyadana ay muhiimka u tahay waxaa weeye in qofka aan identitygiisa cid kala xadin. anigu hadda waxaa la yidhaha axmed cabdiraxmaan xaaji xasan. axmed cabdiraxmaan xaaji xasan kaasi waa inuu qof cad yahay